barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanaa maanta barnaamijkeena waa ka duwan yahay barnaamijyadii hore waa ujeedaa maanta koofidaha nolol keena aniga iyo cabdi waa barnaamijkeenii isboortiga waxaan kusoo qaadanaynaa kalaabka keliya ee Soomaaliyeed ee ka rajiskaraysan gobolka Minnesota waa Saig maxay tahay waa naloo sheegi doona sidoo kale kalaabkani imise sano ayuu dhisnaa waxay hayaan caruur Soomaaliyeed oo ka badan 120 caruurtaasi oo da'doodu ay kala duwan tahay haddaba waxaa nala jooga madaxa kalaabka Cabdirashiid Axmed waa ninka dhinaca fadhiya Cabdirashiid kusoo dhaw Somali Media waxaa ku xiga mid kamid ah waalidiinta Soomaaliyeed oo asagana ka hadli doona dhinaca caruurta Soomaaliyeed oo matali doona waa Amin Musa waxaa dhinacayga fadhiya waa saaxiibkay dhinaca isboortiga iyo maanta waa Cabdi gurigiisa ayaa loogu yimi asaa ka faalan doona asagoo muddo garanayay kalaabkani waxa uu yahay Saiga waxa uu taagan yahay bal waan ogaan doonaa iyaga ayaa noo sharaxi doona marka hadda waxaan u tagaynaa dhinacii su'aalaha hadduu ilaahay kana noqdo su'aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa Cabdirashiid kusoo dhawo marka hore RTN TV iyo Somali Media Zakariya inaad aad iyo aad baa u mahadsan tahay adiga iyo daawadayaashaada aad iyo aad baan u mahadcelinayaa Cabdirashiid waa ujeedaa waxaan wadanaa waxaa maanta ujeedaa Saig maxay u taagan tahay marka hore Saig waxaa loo soo gaabiyey Somali American Youth Enrichment Club adoo sii fasiraya kalaabkan Saig waxaa loo soo gaabiyay tiri Somali American Youth so muxuu qabtaa kalaabkan wuxuu qabtaa wuxuu siiyaa opportunity ilmaha Soomaalida ama ilmo maaragtay cidda doona ha ahaadaan madow ha ahaadaan cadaan ha ahaadaan Spanish ha ahaadaan whatever ethnicity ha ahaadaan ilmaha waxaan siinaa opportunity ay ku compete gareeyaan siday maaragtay gameka ay jecel yihiin ay maaragtay ay u ciyaaraan oo aan maaragtay restrictions badan aysan aan maaragtay aysan u helin kalaabkani goormaa la aasaasay kalaabkan waxaa la aasaasay 2009 so 11 sano ka hor 2009 ayaa la aasaasay ase waalid ahaan see u aragtaa kalaabkani aad u anfaca kalaabkan bismillaahir rahmaanir rahiim maxaa ii sheegi kartaa waxaan kaaga sheegi karaa anigu waxaan leeyahay caruur waaweyn waxaynu kusoo barbaareen basketballka laakiin kaygan hadda saakarta ciyaara sida aniga waagii hore u ciyaari jiray aad iyo aad isbedel weyn baan ka arkaa marka alxamdulillah ma sha Allah Cabdi ma markii ugu horeysay aad kalaabkan maqashaa mayra Zakariya horta waxaan salaamayaa dhalinyarta hawshan muddada dheer ku jirtay ee wada hawshanna waxay ahayd hawl loo baahan yahay aniga iyo adiguna waxaan ka hadalnay dhowr jeer baynu ku soo qaadanay barnaamijyadeena 2017 mar baynu ku soo qaadnay 18 mar baynu ku soo qaadnay sidii loo horumarin lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed marka nimankan waxaan aqaanaa Cabdirashiid iyo Cabdirasaaq Marshaalaba aad ayaan u aqaanaa waagii hore waxay qaban jireen liiga dhalinyarta waaweyn bay qaban jireen waxay ku qaban jireen muddada waxa ahayd 2009kii 2008kii 2010kii Central High School wareeg aad u qiimo badan ayay ku qaban jireen oo dad badan ay iska baran jireen waxaana iman jiray dhalinyar badan oo ka timaado gobollo kale waxaana is baran jireen dhalinyarta magaalada waxaana aad u xoojisay isdhexgalka bulshada iyo caafimaadka guud ee dhalinyarta Cabdirashiid haddaan ku soo noqdo meeqa team ayaa ka dhisan Zakariya waxay ku xiran tahay liiga aan ciyaarano ama waxay ku xiran tahay ma summer ba ma fall ba ma spring ba marka spring oo kale laba team baanu qornaa summer oo kale average waxaan qornaa 5 teams shan team baanu summer ka qornaa average mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaanu 6 qorno mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaan 4 qorno hadda tusaale ahaan sanadkan hadda aan ku jirno oo 2020 summerkan hadda soo socda oo bilaabanaya end of April waxaa noo qoran 5 team baa noo qoran waxaa noo qoran U10 U11 U12 iyo U14 iyo possibly 18 hadda sida hadda aan u jeedno kan muxuu yahay kan wuxuu yahay Saig waxaanu maaragtay hoos tagnaa ama member ka nahay Minnesota Youth Soccer Association Minnesota Youth Soccer Association waxay hoos tagtaa US Youth Soccer Youth Soccer bay hoos tagtaa US Youth Soccer waxay hoos tagtaa US Soccer Federation marka
Minnesota Youth Soccer Association waa the only association oo hadda US Youth Soccer representative u ah Minnesota. hadda marka qaybtaan aan u jeedno waa maxay qaybtan waxa weeye clubka iyaga waa member clubs waxa loo yaqaano ama clubska memberka ka ah Minnesota Youth Soccer Ayuu ku Association. jiraa. marka halkaas haddaad tagtaan haddaad tagtid www.mysa.org ama .com waxaa kuu soo baxaya website-kooda haddaad ku dhufatid member clubs waxaa ka soo baxaya SAYC. marka Dhinaca- hadda waxaanu ka midnahay tiimamkaas halkaa ku jira oo dhinaca soo baxay. eventiska oo kale Ha. maxaa ka qayb gashaan waxaanu ka qayb galnaa ilaa waxaanu ka qayb galnaa 7 events oo MYSA ay sponsor geeyaan ama hoos gareeyaan. waxaa ka mid ah samarka oo kale ka mid ah waxaa ka mid oo kale President's Club Cup waxaa ka mid ah Freedom Cup waxaa ka mid ah aad bay u fara badan yihiin. marka halkan waxaa uga jeedaa Minnesota State Cup Junior State Cup Presidential Cup Lifetime Sport waa wada kuwaas dhan ma ka qayb gashaan kuwaas oo dhan waa ka qayb galnaa. waxa halka ku qoran oo dhan dadka ay aqrin karaan hay cabdishiid adoo aad u mahadsan waxaan rabaa kale inaan ku weydiiyo kalaabkan hadda waa kalaab weyn imise caruur ayaa haysaan hadda right now 2020 waxaa noogu jira database-ka ilaa 130 ilmo active ah. waa gartay laakiin over the lifetime of clubka which is now 11 years waxaa ilaa 800-900 kids baa clubka soo maray. intaada ka bixi cabdishiid xageena laga soo xiriiri karaa waxaana Facebook waa qabnaa website waa leenahay and at the end of the program contact information-ka waxaas dhan wayna siinaynaa. aad baa umahadsan tahay maxaa muuse muddo ayaa halkan ku jirtay kalaabkan ku jirtay waana ogaaday caruurtaada maasha allah waalid waxaa tahay aalaaba la socda maxaa is leedahay marka intaadan kalaabka aada geynin iyo markaad kalaabka caruurta aada geysay maxaa isbedelay wax badanaa isbedelay Haye. farqi weynaan u dhexeeyay markii hore fikradda aan ka qabay waxaan islahaa meel dheer ma gaarayaan kalabyadii caadiga macnaha cunugaaga banaanka soo cayaarsiy oo kale Haye. laakiin markaan arkay oo aan wiilkayga keenay waa sanadkii afraad haddaan been sheegayn hadda Haye. uu ka cayaarayo Haye. 14 years uu jiraa Haye. marka aad iyo aad buu maaragtay nolosha waxbarashada even hadalka Soomaaliga even Englishka even yani edebta wax badan buu banooniga because markii hore nin iska yaro beginning ah buu ahaa laakiin haddeertaan full responsible buu cabdi muddo ayaa sport ku jirtay haddana waxaaba tahayba waxaa soo qaadatay leysankii arbitrinimada ama referiga see u aragtaa kalaabkan horta Sakriyo wax aan ku farxay ayaan meesha ka arkay Minnesota Youth Soccer Association waa dallad aad u weyn oo naqaano waa xiriirka kubadda cagta ee gobolka Minnesota waxayna hoos tagaan xiriirka kubadda cagta ee dalka Mareykanka waa gartay ay hoos tagaan Haye. waa la soo shaqeeyay ciyaaraha ayaa loo qabtaa ciyaaraha inta badan aniga aan qabto waa ciyaaro loogu talagalay sidii loo soo saari lahaa dhalinyarta mustaqbalka u ciyaari lahayd xulka qaranka Mareykanka Waa gartay. heerarkiisa kala duwan hadday tahay xulka eega iyo hadday tahay biiga iyo hadday tahay siiga waana meel mustaqbalka ardayda Soomaalida ama carruurta Soomaalida aad ugu wanaagsan Marka waa Maba first club. moodinba- maba moodinba inay koox Soomaaliya ay ku jirto Adiga- anigoo meesha ka adoo dhex referee jira. ah, Haa. oo sport ah. Haa. Maanta Waaba markuu ku ayaaban farxay tahay. markaan arkay aad Haye. baan wallahi ugu farxay Masha waana Allah. ugu shuucay Masha meesha Allah. waxaan rabaa cabdishiid inaan ku weydiiyo marka meeqa tiim ayaa leedihin meeqa team ha waxaanu qabanaa daadeyna kala leeyihin Yep, waxaanu qabanaa ilaa U9 marka waa 8 sano U9? ilaa U19 ilaa U19 ha baanu qabanaa marka sidaan kuu sheegay marka dhaweydna waxay ku xiran tahay liiga aan ciyaarano ama tournamentka ciyaarano ku xiran tahay samarka ugu badan tiimamka aan qabano ama tiimamka aan register gareyno average-kana waa 5 hadda waxaa ka hadashay samarka Ha. iyo registrationka tiimamka goormaa marka hadda aad bilaabaysaan hadda seasonka soo socda waa samarka midka Samarka noogu xiga hadda waa waqtigaa samarka bilaabaysaan iyo meesha laga heli wuxuu doono. bilaabanayaa April 27 2020 buu bilaabanayaa seasonka hadda oo samarka ah wuxuu soconayaa ilaa July 14 buu soconayaa ilaa July 14 ilaa July 14 daada marka waa sidaa sheegtay miyaa sidaas ilaa 19 u ayay ku kala xiran Haye, yihiin ilmaha haye. 5 sano ka yar ma qabataan ilmaha 5 sano qaarkood waa qabanaa programka iyaga wuxuu leeyahay recreational program buu leeyahay oo ilmaha lagu tababaro ilmaha qaarkood haddaanaa qaban karin waxaan samaynaa referral baanu ku samaynaa
oo other clubs ama other programs, for example Morgan in Burnsville oo kale baanu u dirnaa haddii aanaa qaban karin, laakiin waanu leenahay qayb ama maaragtay branch oo ilmaha tababarta waa marka leenahay. cabdishiid waxaan rabaa inaan kala ku weydiiyo kalaabkiinan waa kalaab registraysan oo gobolka Minnesota waxaan ognahay kalaabyadu markay registraysan yihiin ay tiimuku ciyaarayaan in ay baxaan oo tiimuku ay meelo ay tagtagaan ilaa inteeba gaarsiintiina tagtaan. So anagu Minnesota Youth Soccer Association waxaana la geliyay qaybta East Region baana la geliyay. East Region ka waa East Metro way macnaheedu waxa weeye St. Paul, Woodbury, maxaan ku iraahdaa Maplewood, xataa waxaa ka tirsan River Falls, Wisconsin, Hudson, Wisconsin, waxaa lagu tiriyaa usually East Metro. And each team waxay ciyaaraan 10 game seasonka, 5 home games iyo 5 away games. And away home games waxaan ku ciyaarnaa maaragtay 3 garoon baanu leenahay, mid Minneapolis ku yaala, mid St. Paul ku yaala iyo mid Invergrove Heights ku yaala. laakiin 5 game oo away-ga marba waxay ku xiran tahay meeshana lagu soo qoro ama teamkan lagu soo qoro, laakiin meesha ugu fog aanu aadno waa River Falls, Wisconsin, especially ilmaha yaryar maaragtay oo U10ka iyo U11ka meel fog looma diro, laakiin ilmaha waaweyn oo U19ka U18ka waxa laga yaabaa in mar loo diro Duluth and St. Cloud, laakiin ma badna. maxamed muuse ase waalid ahaan adiga Sax. waxa uu sheegay gudoomiye cabdishiid Sax. chairmanka Sax. waxa uu sheegay in marka qaarkood waalidiin ahaan adiga caruurta ilaa Wisconsin ilaa ay meelo loo diro see waqti u heshaa. waxaan ogahay waalidiinta Soomaaliyeed inay Starbucks meelaha fadhiyaan. wallahi most of the time waxay ku xiran tahay sida qofba caruurtiisa uu u dabagalo oo uu la socdo maaragtay cunugaaga siduu ku influence gareeyo macnaha aad u jeceshahay inaad u raacdid banooni nooc kasta ha ahaato ama basket hadduu dheelaayo ama soccer hadduu dheelaayo. marka most of the time haddaan weyno caruurta waalidiin kale oo raacda inteena oo diyaarka ah baa raaca oo macnaha waa noqon kartaa waalidka inuu xanuunsado inuu shaqo leeyahay, marka badanaa dhib ma jiro. ase waalid ahaan kalaabkan see u aragtaan? waxaan u arkaa best club inuu yahay caruurta soo koraysa ilaa iyo 18-19 waxaa naga haysta waddankan especially magaaladan dhibkeeda waa iska badan yahay, Waa gartay. dilkeeda druggeeda waxeedoo dhan. marka meesha kaliya oo caruurta aad ku hayn kartid waxa waaye inaad isboorti gelisid, isboortigaasna mid caafimaad u keenaya, nabadgelyo siinaya, hagaajinaya oo future-koodana dhisaya. cabdishiid maxaa ku daraysaa? Zakariya waxaan ku dari lahaa maxamed hadalku yidhi waxaa dhacda saakarta Maraykanka Minnesota ama Maraykanka in general waxay noqotay business, big business bay noqotay. We call it the soccer industrial complex. And waxay noqotay programs ama sports oo moodaaba in dhaweyd ba in dadka reachka ama dadka oo lacagta haysa un loogu talagalay. haye marka programka yagan waxaanu ilmaha opportunity ay ku ciyaaraan baanu siinanaa. maxaa yeelay cunuga ama waalidka raba in cunugiisa inuu ku daro competition waxaa laga yaabaa dayna inay yiraahdaan waxaa bixisaa above $1,000. taa waxaa ka sii dheer waxaa u dheer taas kalaabyada waaweyn oo sida Edina ama maxaan ku iraahdaa Woodbury ama so on waxay qaataan the top 10% of kids bay qaataan. marka that means the rest of the kids ma qaadan soo ma. waa gartay. a lot of times waxay sameeyaan intay tagaan programyada recreationalka intay tagaan bay waxay ka qaataan the few kids that are good. That's inta it. kalena waxay yiraahdaan good luck, good luck. marka anaga opportunity waxaanu siinaa kids inayna restrictionka inaanu ka qaadno. cunuga hadduu banooniga uu jecel yahay inuu ciyaaro waxaanu opportunity siinaa inuu ciyaaro. marka cabdishiid waxaan rabay su-aasha halkaa iga imaanaysa imisaad marka cunugiiba ka qaadaan qarashka? waxay ku xiran tahay Zakariya age-ka cunugay ku xiran tahay, waxay also ku xiran tahay how many kids oo family uu register gareynayo. hal cunug oo kale for example fee-ga ugu yar oo markaa fiirisid spectrum markaa fiirisid boqolkiiba 100 ugu yar baanu ka qaadnaa. waa gartay. marka kalaabkiina ma mid Soomaali kaliya loo sameeyaa mise waa mid caruurta kala duwan ee waddanka ku nool African America hadduu noqdo, Asian hadduu noqdo, dadka kale naga duwan, mise kalaabkan waa mid kaliya Soomaali oo qoran? maya kalaabkan Soomaali kaliya looma samayn.
kalaabkan waxaa aasaasay sidaan markii dhaweyd baan ka dhawaajinay cabdirasaaq marshaale haye cabdirasaaq marshaale wuxuu ahaa dadkii Soomaaliya u ciyaari jiray kalabyadii Soomaaliya naadiga batroolka ha waka markii markuu yimi wuxuu coach gareeyay kalabyada ugu waaweyn oo Minnesota for example Edina kale Minnetonka kale maalinba marka wuxuu arkaa ilmo yar yar oo Soomaaliya ama minority ah oo aan lacag badan haysan maalinba in deny marka wuxuu yiri waa ilmahan loo deny garay marka kalaabka saasa loo asaasay sidaa daraadeed waxaa hadda nagu jira ciyaal Mansan baa nagu jira kuwa cadaana nagu jira kuwa madow Afrikaana nagu jira kuwa Spanish nagu jira marka kalaabka Soomaali kaliya maahe waa qof walba oo opportunity raba inuu compete gareeyo bal cabdi waad maqlaysaa صح haye horta hawshaas aynu sheegnay waa waxa weeyaan wadamada Yurub baa laga sameeyaa waxa la yiraahdaa football school baa la yiraahdaa haye waa meel xirfad lagu barto Marshaale iyo Cabdirashiid iyo waalidiinta la shaqeynaysaaba waxay bulshada ka sugayaan wax badan in la garab galo oo la garab qabto oo loo sameeyo facility ama resource badan laakiin isku soo wada duuduubo hawshaas oo hadda jirin haddana waxay qaateen dadaal dheeriya sidaan ogahay anigu aan indheeyo ciyaaraha carruurta Soomaalidu aad ay ugu fiican yihiin oo aanay kaga technically fiican yihiin ama kaga haybad fiican yihiin dadka cadaanka waa gartay dadka cadaanka waxa la baraa kubadda ay ciyaaraan waa baas qabo u dhiib control baas bixi laakiin ilmaha Soomaaliga kubadda uu soo qaadanaya uu jiidaya laba ama saddex ba maraya haddana dadka cadaankii waxay xulanayaan ilmaha kale iyagu ay rabaan bay xulanayaan iyagoo oo ma garanaysaa ay waxyaalo badan iska jiraan oo xagga ka sheegi kareen haddana oo sida dhaqaaluhu ay ka mid tahay inuu waalidkii Soomaaliga aanu awoodinba ama qofkii marka ilmihii assignment kale la geliyo waxa ku adkaanaysa waalidkii oo ma garanaysaa iska duruuflaya inuu kolba ilmihii daba socdo oo shaqo tagaa mise ilmihii buu kaxeeya marka waxay noqonaysaa inay isla niyad jabaan war kubad lahaane waradoo noo xamaan marka laakiin waxa meesha ka imanaya مشروع وين وجن حلقة الصومالية هدر وكي عياري سكريو وحلقنا كشجنا أي رج بدن إن الله صار حريرين أي هيين والرجي هيو كلهم بهيا لكن رجل واحد كجدوين وحي سوقبتين دقات ويربي سوقبتين إيه كسب وحينا كان ماشي أي المهاس يوالد كوجا أي كسي عن بقعد الهايين يجو وات المامة ويتصير لكن هوش أنت بدن وحوت موسيقى وجعلها هاي أنا يمي كان يجيب خرمر لجو سمي أنا كعن قبطان مروه بهاي جيا هيا عبد الشيء waxaan ku darayaa sidaa sheegtay brotherku uu sheegay ilmaheena especially Soomaalida waxaan ku ciyaarnaa passion marka ilmaha cunuga markuu passion ku ciyaaro opportunity uu asiisid they don't have any limit waa limitless and hadda for example kamena hadline for example waxaan rabaa in la share gareeyo Sayak waxaan qaadnay state championship-ka mar baanu qaadnay soo socota USA Cup-ka mar baanu qaadnay inta guulaha leagues-kana iska daa marka ilmaha haddii opportunity siisid oo asiisid supportive environment and coaches oo luqadooda ku hadla coaches oo ay maaragtay relatable ah hadda for example waxaanu haysanaa 5 coach oo majority-gooda ay already ay ahaayeen dadkii kow lagu bilaabay Sayak oo maaragtay background-kooda uu yahay ama mission-kooda iyo philosophy-gooda uu yahay ilmaha inay supportive environment ay siiyaan ilmaha haddii la siiyo supportive environment and opportunity to compete waa limitless way they can do anything ase waalid ahaan maxamuse kalaabkan oo ujeedaa laga dhawaajiyey ما شاء الله dhinaca dhaqaalaha bal ka waran أدي dib buu idinku haya مية الحمد لله ما شاء الله يعني واحد جرو قفل بهرت سبا إلهي واحد يقول ديبي haye لكن وحان أركا بقولكي بقول ما أركتي كلاب ككلية أمالينا يو دنيرت إنه قرب قبنا يعني marka waalid ahaan adiga ilaa kalaabka muddo ku jirtay صح guddiga iyo maamulka صح iyo macallimiinta iyo waalidiinta ma kulmaan ma wada hadlaan haddii wax dhacaan ma ka wada sheekaystaan idinka ahaan dadkani ma kontroolshaan carruurta say wax u baraan siday yihiin horta waxaan ku fiicannahay kalaabkan uu maaragtay number 1 ku yahay aan ku dooranayna waxa waaye waalidiinta shira ayagaana guddiga sameeya waa gartay coachka
macnaha guddiga kalaabka madaxda kalaabka waa nagu taageeraan inaan macnaha waalid ahaan isxulno oo 2 qof 3 qof la shaqeeya inoo ogolaadaan macnaha coachka iyo maaragtay guddiga marka wax dhibaato oo aan ku qabno malaha dhanka dhaqaalaha haddii noqoto dhanka is organized granta traveling all that things inshallah cabdi adigu waxaa taadan arbitata mar dhowaad soo qaadatay ma laga yaabaa marka in kalaabkan waxaad ka caawin kartay dhinaca refereega oo kale haddii refereegu khalad ku sameeyo haddii ay soo dahaan oo dhibca laga qaado haddii red la siiyo ama yellow la siiyo aysan xaq ahayn dacwo ahaan iyo see ahaan adiga aad u caawini kartaa wax badan baa laga caawin karaa wax laga caawin karaa waxaa ka mid ah ilmaha maadaama aad kula hadlayso afkoogii inaad sharciyada kubadda aad wax badan uga sheegto sida ay ka mid tahay inaanu gacan qaadin waayo isagoo ciyaartoy fiican ah oo ma garanaysaa ilaahay hibo u siiyey oo mustaqbal ku leh haddii uu gacan qaado liis madow baa la gelinaya laakiin markaad adigu adeerkii ama abtigii af Soomaali aad kula hadasho waxaa laga yaabaa ilmahaasi inuu waanadaada qaato halkii nin kale oo ajnabi uga sheegi lahaa taas mid bay ka tahay markay waalidiinta noqoto waalidiinta qaar waxay iska jiraan iska caadifad badan ama hadday noqoto inkastoona Soomaali u qaban laakiin dadka cadaanka oo ku dhamaca reerka loo soo ilmihii horboodaya laakiin waalidkii markaad u sheegto tiraado ninkan refereega waa judge meesha ku dhex jira oo kala xukumaya ilmihiina edabteedii baraya waxaan jeclahay waalidiintu inay qaadanayaan haddii la iskaashado refereeyada badan ee Soomaalida ee jira iyo coachka iyo waalidiinta iyo dadka ilmaha gacanta ku haya iyo ciyaartoyduba waxa ka soo baxaya dad aad u qiimo leh ka soo baxaya cabdishiid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kale maxaa adinka kalaab ahaan kalaabyada kale magaaladan ka jira maxaa ugu duwantii inaanu ka fiicanay maahe inta kale isku mid baanu ka nahay waxyaabaha ugu duwantii waxaan kaga duwanahay for example small club baanu nahay small clubkana wuxuu leeyahay benefit aad iyo aad u fara badan buu leeyahay waxaa ka mid ah in ilmuhu ay helaan individualized coaching individualized coaching waxa weeye cunuga coachingka wuxuu helayaa opportunity badan buu helayaa contact badan buu la helayaa one on one wuxuu kaloo siinayaa confidence iyo wuxuu siinayaa confidence builder buu u noqonayaa waxaan kaloo kaga duwanahay lacagta idayn oo kale waxaa laga yaabaa 1300 bay charge gareeyaan annagana fraction of that baan charge gareynaa ka yar ha okay waxaa laga yaabaa idayn oo kale sababta u charge gareynayaan cunugu markuu soccer dheelayo qalab buu u baahan yahay qalabka idinkaa bixiya mise waalidkaa soo gato fiiga aanu ka qaadno for example samarka oo kale qalabku wuu la socdaa waalidiintu waxay soo gadanayaan maaragtay kabaha bes annagaa waxaanu siinaynaa jersey-gii 2 jersey mid home iyo mid away ah waa garta xataa waxaanu bixinaa backpacks oo uu ku qoran yahay cunuga numberkiisa iyo saay uu ku qoran yahay waalidiinta of course waalidka way garanayaan biyo iyo waxa ilmaha ugu soo qaadayaan haddii aad fiiriso waa qarash badan qarash yarna waa qaadataan yaa idin caawiya marka waxaanu samaynaa maadaama clubka iyagu waa non profit maadaama non profit nahay waxaanu suubinaa fundraising baanu suubinaa waxaanu leenahay sponsors community sponsors baanu leenahay hadda MYSA oo kale one of the sponsors oo na caawisa weeye maxaa yeelay each team are registered lacag waaye each player registered lacag waaye marka fiiga anagu ka qaadano maba cover gareynayaba inta fiiga ay naga rabo MYSA xataa ma cover gareeyo marka waa inaanu meelo kale ka keenaa oo wixii maaragtay kabnaa weeye maxamed muuse waxaan rabaa waalid ahaan inaan ku weydiiyo carruurtaadii markaad kalaabkaan geynaysay kubadda hadda wiilka 14 jirka oo kale nin markiisa hore kubad yaqaanay oo aad soo tababartay oo kubadda laadi kara ceshan kara joojin kara muu ahaa mise wuxuu ahaa nin iska orado wuxuu la soo koro horta wiilalka waaweyn oo basketballka iyo cayaaro oo jecel marka wuxuu ahaa nin aad basketka u jecel waa gartay marka soo karta markii aan aniga dhowr jeer la xiriiray psych baan waxaan macnaha iri ninkan waad soo tijaabinaysaa oo soo arkaysaa yani kubad yaqaan ma ahay ma ahay alxamdulillah maantana waxaan u malaynayaa
markuu hal season markuu dheelay Ah. magac kalaa loo bixiyey Maxay macnaha bixiyeen? magaca Tigana Tigana ha Haye. ciyaartoy Faransiis marka nin maaragtay culus buu ahaa Faransiis ah haye oo maaragtay aad banooniga iyo maaragtay marka dhaxyu ka dheelaamaya wiilkaaga adiga wuxuu ka dheelaa difaacna wuu ciyaaraa dhexdana wuu ka dheelaa nin marka madow waa Tigana. ha nin culus waaye marka alxamdulillah marka waxaan belief garaysanahay cunuga hadduu beginning yahay xataa ha in uu micnaha la isi karo tiimkan micnaha naadigan uu dhisayo tiim ahaan iyo Soomaali ahaan in la helo tiim sidaan oo kale ku registeraysan club weyna soo aragtaa iyaho wallahi waxaan u arkaa wax weyn guul baan u arkaa bulshada u soo korodhay Soomaaliyeed ta kale waxaan halkan u sheegayaa oo dhaliilaya dadka ina daawanaya ee ganacsiga leh waa gartay ma garanaysaa wuxuuga beelo kale way ku bixiyaan oo aan looga baahnayn hadday noqoto xasaradaha ka jira Soomaaliya qayb bay ka qaataan Haye. oo kolba nin bay soo dhaweeyaan meesha laakiin waxaan u You're right. dhiirigelin lahaa ilmahan yaryar ee mustaqbalka ku leh ciyaaraha inay garab galaan waayo waxaa jirta Sakariyo aniga iyo adiguba waynaga isla daawana ciyaaraha rag badan baa yaqaan inankayga kale muxuu noqon lahayn Maxamed Saalax Maxamed Saalax abi hadduu Soomaaliya ku mashquulsan yahay ma noqonayo cunugi ma ma noqon noqonayo waa inuu Saaxiibkii kalaabkaan baa oo kala siyaasiya. geeyaa waa inuu meelahan oo kala keenaa oo lacagta ku bixiya ragga hawshaas oo wada kala wixii uu awoodo oo cid qasbaysa ma leh oo ma garanaysaa dhiirigeliya oo inankiisa uu qoraa Support waxay fiican faa'iido waa u inaan tahay helno, sax. ilmaha u tahay moraal ahaan wuxuu ka joogsanayaa ciyaal suuqnimo ka joogsanaya wuxuu ku fiicnaanayaa casharka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabi maxamed العقل السليم والجسم السليم يعني عقلي قفك مركو فيو يهي جيركيسنا wuu caafimaad qaba marka waxaynu umadaha kale uga Chelsea hadhnay waa sportiga sidii oo umadaha kale kale waxaynu uga dambaynaa waxa weeyaan inagiiba meel kale ku mashquulsan laakiin waxaan u sheegayaa dadka businessyada leh ama karameel ku leh ama hoteelada leh ama wuxuun leh inay ka warhayaan caruuraha Soomaaliyeed ee magaca ummadda Soomaaliyeed kor u qaadaya natiijadiina waa la arkaan malaynayaa ciyaarihii safeebka koobka adduunka ayaa la arkay ciyaaro laga ururiyay عبد الشيدو شيدو عبد كده واجي كلاب يراتين مدة سنتين دقالين واسكير يهاي كوميونيتي الصوماليات إلا يهالكم على الوقت سابقية أفرتكم إنه دقتها مدح دكتين دتك بزنس ليدا موتكتين ما كلا هذا الشيء سيد دقالان نليسين لها لا واحد إنسان عروس صوماليات أتكئل على إنسان دراجسكا حيابها حن هدوسوا عنق إذاك إذا هين kuwa kala haynaya marka ma iskariyo su'aal fiican waaye waa su'aashaas waa su'aal aad u fiican ha waa waxaanu waxa business yaal badan fara badan baanu maaragtay relationship la leenahay xiriir la leenahay oo na caawiya and hadda Afrodeli oo kale is one of the businesses oo na caawiya Kahin and we're very thankful for him wanda ciyaaro ku jira ninkaas oo ciyaara exactly and marka and waynu ogyihiin dad badan we reached out to a lot of people and so far mana caawintii sidii caawintaan ka rabnay saa u rabnay laakiin waa gibaan ma sameynano waxaan leenahay congress Ilhan Umar baan leenahay senatorooyin badan waxaan leenahay city council baan leenahay marka xildhibaanaan leenahay ma la xiriirteen iyaga mar haddaatiin non-profit organization sidii waxna lagu raadin lahaa meesha keliya wax lagu bixiyo inaa idinka atiin lamaana xiriirin anaga hadda for example maanta waxaan meesha anagu dad oo kaamirada oo shaay ka aan waalidiinta basically clubka aan manage gareeya hadda anigu waalid baan ahay laba wiil saddex cunug baa clubka igu jira u ciyaara marka waalidiinta ma rabaan kaamirada inay soo hor istaagaan usually waxa loo yaqaano word of mouth weeye saanu hadda u shaqeyna word of mouth waxa weeye waa social marketing weeye adaa waxaa leedahay cunugayga waxa u ciyaara clubkaas maaragtay markaasaan clubka wacaya oo raadinaya meeshaan TV intaa tagno oo tagi lahayn oo ma arkino Facebook live geli lahayn waa more of life waa more of life ama xafiisyo garaaci lahayn society exactly marka maanta waalidiin oo waadhow nagu soo biira waxay yidhaahdeen kaale idinka maxaa inaga khaldan 10 years baa jirteen how come aysan community-ga magaciina meel buusan oo maxaa u tagi weydeen TV-ga marka fikradan waalidiin oo gadaal naga soo biiray muddo maaragtay
cabdi waa dhow nagu soo beera baa yiri meesha tagoo ase dadka ani u marka sheegay su-aashaan weydiiyey inkastuu cabdirashiid xoogaa ka lexlexday ase dadkan dowladda noogu jira meesha keliya ay wax ku bixin karaan ama Sports meesha squad, keliya you're right. ay dhihi karaan ha la caawiyo oo caruurta soo saari karta waaragta siidar iyo xaafadaha carmel 24 albaabada iska taagtaagan yihiin caruurtii mar walbana waxaa la dhahaa caruurta soomaaliyeed ma club loo sameeyo club waa samaysan yahay 10 sano ayuu jiraa shaw ah marka adiga waxa weeyaan horta secretary process baa jira marka grant la doonanayo haye waxa weeyaan iyadoo garaan la sida doonan inay Cabdirashiid- iyagu wax u raadiyaan sida Cabdirashiid baa uu sheegay iyagu ma raadin karaan waxa weeyaan nimankan waalidiinta ah ama kooxda maamulaya in iyagu codsi ay soo qortaan oo ay geeyaan guriga xildhibaanada oo ay shaqada ay qabanayaan lagu sameeyo evaluation criteria la eego ilmaha ay hayaan tiimamka ay hayaan sida ilmaha u howlgeliyaan hawshan hawl community-ga Soomaalida u taalma waa hawl u taal gobolka Minnesota waa hawl u taal guud ahaan laakiin waa in anaga asaaska anaga haddaan soo asaasin meesha waxa ka maqan oo ah nimankan la doortay gobolka laga doortay Soomaalida in iyaguna hormood ay ka noqdaan qayliyaan oo ay meesha ay hor istaagaan oo ay dadka Soomaalida waxa jira organization badan baa jiro ciidda ka badan oo badidoodu aan magacuun ah oo aan waxba aan qaban xaqiiqda markaan ka hadalno haye oo iska madhalaysa marka waxaa loo baahan yahay kanoo kale in iyaguna ku qiimeeyaan oo yidhaahdaan war sanadkan waxaan rabnaa inaan caruurta Soomaalida wax u qabanno Waana invite idinkana ay hadda, idin Saad yeedhaan Iida. iyagana ay soo qortaan codsigii lana caawiyo wadadii la mari lahaa anigu ma qabo xildhibaanada Soomaalida in iyagu lacag hayaan jab ku hayaan laakiin waa tilmaame waxay tusayaan qaabkii la mari lahaa waxay u sameynayaan recommendations bay u sameynayaan saa inay isku kaashadaan ba aniga aad ila qurux badan baa waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka su-aasha ugu dambeysa saddexdiinaba waa ka jawaabi kartaan cabdishiid aan ku bilaabo ase waxaa tiri waalidna waa tahay maamulkuna waa ku jirtaa shacabka Soomaaliyeed dunida meel kasta ay joogaan maxaad ka codsanaysaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ilmahooda waxaa ka saaran responsibility aad u weyn baa ka saaran waana wax easier maaha especially westiga hadda Minnesota ba ka soo qaad Minnesota aan joognaa ka soo qaad wax easier maaha pressures fara badan baa jira societal waxaa jira constrictions baa jira or constraints laakiin in la isku xirnaado oo outlets markii la helo sida SAYA oo kale ama other programs in maaragtay si isku gurmada la isku kaashado oo la wada shaqeeyo oo maaragtay ilmaha xoog la saaro baan dhihi lahaa if you could give me the opportunity since you're going to have since your life on Facebook to reach out to people that might be watching we're trying to provide access to kids that might have otherwise not gotten access to play competitive soccer in the state of Minnesota. A lot of these kids, they're pretty much marginalized because one, they may not be able to afford it, and two, they might look different. And so we're trying to make sure that anyone, any kid that wants to play soccer has the opportunity to play soccer. That's what we provide. And so for potential parents that might be watching this afternoon, if you're sick and tired of the status quo, if you're sick and tired of the marginalization, if you're sick and tired of the fees that are ridiculous, reach out to us and you might find home in us. We will give you open arms, we will welcome you, and together we can give an opportunity for our kids. Abshir, thank you very much. Then, SAG, did they give it back the community? Say that again. SAG, did they give back the community? Well, we are giving back to the community by providing this access that might not have otherwise been provided. We hold, for example, in the winter, for example, we have an enrichment program where we provide tutoring to any kid that might need help with tutoring. We do that at Dixie Academy in St. Paul. We also participate. We're trying to create leaders, race leaders, and so a lot of our kids, especially the older ones, participate in programs like the Feed the Children. Feed the children. Yep, they did it. We also do. We did it. A lot of them, because of what we're instilling in them, a lot of them actually become leaders
for example, they become the captains of their high school teams, for example. We currently have at least 5 captains that are from SAYC. So we are constantly giving back. We're given access that's otherwise not there. And we will continue to do that. thank you very much Inshallah. waalid ahaan maxaad ku daraysaa wallahi waxaan dhihi lahaa waalidiinta micnaha ereyga window shop camal ha sameeyaan haddii aysan waqti kale hayn xataa waan gartay ha yimaadaan ha arkaan kalaabka ha arkaan sida loo cayaarsiinayo carruurta ha arkaan haddii habi ay ku noqdaan welcome haddaysan habi ku noqonna carruurta ha u faa'iideeyaan mar kastaba meel kastaba ha mar tagaan. kastaba ha tagaan carruurta ha loo faa'iideeyo because ilmaha North America Canada ha ahaado Maraykanka ha ahaado ilmihii waa dhib qabaan kuwii waaweynaa tagay waa tageen ilaahay ha noo soo nabad celiyo laakiin kuwan yar yarka ah ha loo faa'iideeyo cabdi haye maxaa kusoo gabagabaynaysaa wallahi waxaan odhan lahaa community-ga markay dhibaato dhacdo way qayliyaan oo waxay dhahdaan ilmaha la dilay xalay intii exactly dhimatay allah u naxariisto yep waa gartay intii hawada ka baxdayna allaha soo hadeeyo amiin amiin waxaa meesha taalla in la isweydiiyaa war intan inoo badbaaday saynu usii badbaadinaa waa ha gartay marka waxaad moodaa su-aashaas community-ga o dhan inaanay weli isweydiin ee ay iska caatifadoodaan ama emotional noqdaan markay dhibaata dhacdo ay isku yimaadaan ama yidhahdaan broyan kol kaalay ama maxay kaalay dadka la yidhahdo laakiin hadda meeshii ilmaha lagu badbaadin lahaa meeshii lagu waa badbaadin oo lahaa kale. waa halkan oo kale Haye. waayo ilmaha waxay ka caawinaysaa akhlaaq ahaan wuxuu macaamil la samaynayaa dad iyo kala duwan waa maqays xataa ayuu turur la bay samaynayaa. sameeyaan Tururka. in carruurta iskuulaadka ka caawiyaan iskuulaadkii bay ka caawinayaan ilmahan waxaa loo dhisayaa mustaqbal waayo gartay. tusaalaan ku siinaya inamadana siinaya kubadda cagtu waxay ka mid noqotay waxyaalaha ugu fiican ee maanta lacagta laga sameeyo waa gartay ninka dhakhtarka noqda ee wadnaha dadka qala ama ma garanaysaa keliyaha ka soo saara waxaa ka lacag badan ninka ciyaartay saakarka ciyaara laakiin bulshadeena soomaalida dhibaata haysatay ku dhex anigana ay soo haysatay ninka kubadda ciyaara saaqad baynu u naqaanaa ha dibjir Soomaaliya. dibjir Haye. ha dijir baanu naqaanaa waa gartay oo marka uu Banaanka quraanka baa la leeyahay quraankiina waxba kama keenayo tii uu wax ka keeni lahaana waa la siijiyey waa gartay oo qof saaqada adduunyada ma jiro waa gartay gaalada waxay dhahdaan qof saaqada adduunyada ma jiro qof wax ma ku jiro fiican yahay. qofku maanta hadduu ku fiicnaan waayo quraanka waxa laga yaabaa inuu ku fiican yahay farsamada gacanta farsamada gacanta hadduu ku fiicnaan waayo inuu baalasheynta ku fiican yahay laga yaabaa hadduu taa ku fiicnaan waayo sida wax loo design garay inuu ku fiican yahay laga yaabaa absolutely laakiin Soomaalidu positionkii qofka uu rabay ee ilaahay u abuuray ee uu raadinayo Maya. fursadiisii ma siinayaan hadduu yidhahdo kubad baan tegaya wuu saaqadaa la leeyahay hadda ma saaqadin laakiin wuxuu qaaday waddo saxa tusaale idiin siinaya taas mar labaad baan ku celinay waxaa jira nin ciyaartooya oo caalamiya ma jira oo Liverpool hadda u ciyaara habeen dhaweyd waxaan daawanayay akhristay taariikhna nololeedkiisa aabihii imaam buu ahaa uu dhintay wax la Saacadiyo Maane isagoo cagacad ayuu ka tegay tuulada oo ku dhashay Bambali la yiraahdo Senegal ku taalla wuxuu yimid magaalada Dakar ee caasimadda ah nin waxa qabtay la yiraahdo Aliyu oo haddana xulka qaranka Senegal coach aba gacanta ku qabtay maalintii la wareystay waxay ku jirtaa bbcsport.com ku jira wareysigaasi waa inspiration dadka waxay siinaysaa dhiirigelin aad u weyn uu cagacadaa ciyaal kaba qurux badan la iyo tartanka la galo wuu ka fiicnaaday waa la qaatay maanta heer buu ka gaaray wareysigii la siinayay wuxuu yiri aabaha iyo hooyaday waxay igu wadeen inaan doctor noqdo laakiin ilaahayna halkan bii waday war markaa ilmihiinna meesha idinku wadaan waa fiican tahay laakiin marka xagga sportka u jeesto ku dhiirigeliya caafimaad ahaan iyo cabdi shid wax miyaad ku daraysaa barnaamijka ma soo gabagabeeya waxaan ku dari lahaa un like I said earlier saakarta laguma talagelin keliya un dadka lacagta haysta saakarta qof walba oo jecel saakar inuu ciyaaro inuu opportunity u helo inuu ciyaaro that's all we're doing waa gartay and we'll leave no rock unturned to provide that access. Marka aad iyo aad baan umahadsan Zakariya for inviting us. Really appreciate it. Emma Musa maxaa ku daraysaa waxaan ku dari lahaa waxaan leenahay Saturday-dan I think so much Saturday-dan fundraising things tabarruc baad leediin miyaa tabarrucaad ha maalintaas marka maalintaas waa invite garanaynaa macnaha waalidiinta xilligii iyo waqtigii ma taqaanaan mise dib Wa- baa waan noogu waan Way- naqaanaa. way isu sheegeen. dib baa noogu soo sheegi doontaa okay cabdi ugu dambeyntii adigu maxaad ku sii daraysaa wallahi waxaan ku dari lahaa tabarrucaadka inay la bulshada ka qayb caawiyo. qaadato waayo waa sadaqo wax kastood bixinaysaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, innama alacmaalu binniyaat wax kastood bixinaysa meel niyada afar tobanka waa brobi afar tobanka dhalinyar baa loo Saturday qabanayaa Soomaaliyeed waxaa loo sameynayaa mustaqbal nimankan meesha fadhiya waa hagi waa ilmihii
waa waalidoo kale weeyaan way hagaajinayaan mustaqbal bay u samaynayaan mustaqbalkaasi reerkiisuun ma anfacayo markuu noqdo ciyaartoy weyn oo caalam iyo Soomaali dhan buu anfacaya Absolutely. haddii xitaa manfac kale naga soo gaar way magac baan anfacaya marka dadka ka soo qayb galaan aad baa adigana umahadsan u diyaar garow team baan kuu sameynana arif gareysiisa markaan إن شاء الله cabdi waa la socotaa dee laakiin cabdi markaa refriga ta Soomaali waaye ما بنوني واي may wallahi hawshaas ma shaqaysan كبد aad وكبد umahadsantihiin waqtigeennina aad na siiseen waa ku mahadsantihiin Ma sha Allah. waxaan ku dari lahaa keliya mar halkan waxaa ku soo qori doonaa telefoonka laga helo kalaabka telefoonkiisa fadlan waca la xiriira siduu sheegay cabdishiid bisha abriil ayaa caruurta cusub la qaadan doona hadduu ilaahay karaan noqdo yuusan idinka hor buuxsamin Iyo Facebook lambarka hoos ku qoran fadlan waa inaad wacdaan oo aad weydiisaan xilligaad caruurta aad rabtaan xataa cabdishiidow xilliye kale leeyihin soomaa samarka si waalidka shaqeeya oo u helo mid kale uu keensado xilliye kale fiican team walba maalin gooni buu ciyaaraya for example U10 Thursday bay ciyaarayaan U11 maalinta so maalin go'an waa say waalidiinta say u jecel yihiin waalidiinta say ugu sii transportationkan waa ka caawintaan soomaa inta badan waalidiinta baan xilka Waalidka qaada imaan kari waayo. laakiin qofkii caawin u baahan waan ka caawin karnaa fadlan marka telefoonka hoos ku qoran waca la xiriira website-kana waa kaas hoosaan kusoo qori doonaa idinkana dee cabdishiid aad baa u mahadsantihiin Thank you so much. waalidkiin dhammaan